صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. به قام ميزان دين الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا. كتاب الفتن باوري إنه كترنا إنه صعدة ولو هاتنا كدولونا هاي من عشر كان يكدم بيا بإذن الله تعالى إنه ظهر صن فتن. كوحر الإمام رحمه الله تعالى باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. إذا قال هدولا عند قوم ذد سوى أكتو أما قوم أكتو شيئا وحبو كهالله وحبو شيكتي أمتا ثم خرج وصاب حيا فقال بخلافه. هذا الكي ومركي ورا لها ما يغوحي وكلا وحكا دوان بويلبا بل مثلا تاسو كلا وبسا أدان يقنع مرادي وكلا هرتو دبوكا أمانيا وفي عنتي وصان markuu baxana wax kale ayuu kuba hadlaya, bal waxa kuba yimid taa ku soo arooray ayuu ama umuraha cadeynteedii uu baabkeedii yahay. wuxuu markaa imaamku rahimahullahu ta'ala hadathana Sulaiman ibn Harb qala hadathana Hamad ibn Zayd an Ayyub an Nafi' qala lamma khala'a ahlu al-Madinati Yazid ibn Muawiyah جمع ابن عمر حشمه وولده فقال كل في تمام كسرنا وحيالي المسلمين تلحوا دي دعي بعد قتل عثمان أمير المؤمنين عثمان انتي لدري دبدنا دي قيبا أيام كبصوا أرغني وأنا آثارتي تاكدرتين وحيالها إنو سعدا ولي مركاوحوا لي نافع باورانيا لما خلع مركي ده حلك أما عزيلين با أما بعدين سياد أي بعدي أضيعينه وأميركو ده هاي كماشي يجو إسكسارين وإسقي بحيان أهل المدينة ترى المدينة يزيد بن معاوية بن معاوية أي جماعة وحوري ابن عمر إن عمر حشمه تدكي خدمتي السياحة يدكي ده كحرنا يا أما dadkii uu adeegaya kuwa iyo waladahu carruurtiisii ama wixii uu dhalay buu ururiyay waa intoodii roonroonay. faqaala wuxuu yidhi innii anigu samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo yunsabu waxaa loo taagi doonaa likulli qaadirin mid kastoo cahdi uu galay iyo ballan uu galay buriya oo ka baxa liwaa-un calan baa loo taagi doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha. oo ruux kasta hore xadiidka qaybka intan ku tacalluqsan waynu soo maray. ruuxa qaadirka ah ee intuu ballan qaado ama waxa cahdi galo cahdigii ka baxaya burinaya waa dee dembi taasi waana calaamaadkii nifaaqa wayda caahada qadara waa waxyaalihii munaafiqa ama sifaadkiisa nifaaqa camaligaaba haba noqdo. haddaba ruuxa maalinta qiyaamaha ayaa calan baa agtiisa laga taagayaa dheer isagaa loo taagayaa. waa calan iyada markaas caddaynaya oo arrintiisu ay tahay bal waa lagu dhawaaqayaa oo calankani isagii baa lagu fadeexaynayaa la muujinayaa la odhanayaa haadihi qadratu fulaan ibni fulaan waa hebel cahdi burintiisi macnaha wixii uu galo adduunyo ku soo sameeyey ballanka inuu ka baxa ma uu buriyo ahaa ayaabay tani tahay oo calanka saasaa loo taagayaa. xadiidkii marfuuca iyada intaas weeye. markaasaa wuxuu yidhi wainna annagu qad baayacnaa waan la mubaayacoonay baycaan la gallay oo baycadii madaxda laba gelaya haada rajula ninkan yasiid buu sheegayaa calaa baycillaahi wa rasuulih waa baycadii ilaahiyo rasuulkiisoo taa ahaa dee in dadkii madaxda ahaa bal la maqlo oo la adeeco taas cahdigaasaan la gallay.
wainii aniguna laa aclamu ma ogaanayo macnaha waa qadran cahdi burin oo ma ogi maye qadran cahdi la buriyo oo acdama ka weyn maan yubaayaca in lala mubaayacoodo cahdi lagula galo rajulu nin calaa baycillaahi wa rasuulih baycillaahi wa rasuulih dee mubaayacadiisa ruuxani daaco la imanaya isaguna muqaabilka waxbuu helayaa sii beeci oo kale macnuhuna waxa weeye waa wixii ilaahay shardiyey iyo rasuulkiisu ay shardiyeen ee ahaa xagga markay beecada noqoto in la adeeco wixii aan macsi ahayn lagu yeelo oo lagu adeeco bal maalan aan daacadoodana lagaba bixin taas buu sheegayaayo qadri ka weyn in marka hore cahdigaa lala galo uma yunsabu loo taago haddana lahu isaga alqitaalo lagala hor yimaado dagaal iyo taasoo daacadiisii laga baxo cahdi la buriyo taa ka weyn anugu maba garanayo fasaad weynna way ka timaadaa wainii anigu laa aclamu tan ma ogiidu waayaanan ogaanoo kama warhelayo weeye fi lmustaqbal axadan axad minkum idinka mid oo khalacahu ninkaa yaziid baycadaasaynu markii hore la mubaayacoonee ka baxay weeyaanoo isaga daacadiisii iyo waxaa dee luquntiisa ka siibay oo kaba saaray fii hada alamri walaa baayaca mana ogaan doono ruuxu idinka midoo la mubaayacoday fii hada dadkan kale imaka soo baxay iyagu isagiile waanu casilayo anigaa markaas madaxdii ah la mubaayacooday oo axad kuwa ka mida la mubaayacooday ilaa oo taa aan ka war helo kaanat xaaladaasi waxay noqonaysaa alfaysala waxaana kala goynaya beynii wa beyno anigiyo shaksigaas basna dib dambayse isuma sheeganayno halkaasaa xidhiidhka iyagiyo ku go-aya oo waxa weeyaan waana awlaaddiisii buu ku leeyahay bal arrinta haddaan in yar iftiimino iyadoo dee habeenadanna waxyaalo kale aan kuba jirnay yaziid waa yaziid ibnu mucaawiya ibnu abi sufyaan weeye mucaawiyata ibnu abi sufyaanna saynu soo marray sanadii caamal jamaaca la baxday markuu xasan ibnu cali 41 ka tanaasulay daama 40kiiba isagoo khilaafadii isagoo ciidan aad u badan watay si uu dadka muslimiinta dhiigooda u badbaadiyo isagaa amiirkii guud iyo khaliifadii muslimiinta noqday waana tacaamal jamaaca waxaa loo yidhi dadkii markii hore kala jabsanaa ee kala tagsanaa islaynayay ayaa midoobay wakhtiga hadduu qabto wuu dheeraatay khilaafadiisii way dheeraatay ilaa 60kii hijrada waa 40kii hadday waa 20 sanadood oo kale ayuu khilaafadii kuba sugnaa haddaba wakhtiyadaa in isaga xaaladiisa ama awaakhirtii cumrigiisa intaanu dee isagiiba wafaadin ayuu bilaabay in loo sii diyaariyo yaziid ibnu mucaawiya inuu isaga halkiisii galo bal dee waxa weeyaan waxaa la bilaabayba dadka bayca in laga qaado inay isagiina la mubaayacoodaano ibnu cumar markaa waa diiday markaa hore ee dagaaladii amiir almu'miniin cali iyo mucaawiya dhex socday intaa cid lamu mubaayacoona markii la kulmay ayuu baycada galayba isagu caamal jamaaca haddaba uu diiday isagu oo yidhi anigu laba amiir lama wada mubaayaconayo dee aabbihii baa noolaa laakiin markii uu dhintay mucaawiya ibnu abi sufyaan ee uu isagu noqday dee kii isagu halkiisii qabtay ayuu la mubaayacooday marka la eego cabdillaahi ibnu cumar oo beecadii buu la galay beecadii kol hadduu galiyo isagii ehelkiisu ay galeen dee mamaaligtii islaamkayd ama bilaaddii islaamkuna taasay wada ahayd haddana waxaa dhacay inuu nin ay ilmaadeen ruma ahaayeen oo waxa weeye isaga labadooda aabbo abi sufyaan bay isugu imanayeen ayuu madiine amiir ugaba dhigay yaziidkani dad markaa wujahadii reer madiine ana shaam buu u diray si ay ula kulmaan yaziid waa soo dhoweeye laakiin markii ay soo noqdeen ayay dee waxyaalo ayay sheegeen ninku inuu faasiq yahay tan khamro u cabo waxyaalo markaasaa waxaa dhacday in dee ninkii markaa u joogay waa ninkaa kale ilmaadeerka ahaa in madiine laga saaro iyo reer bani umayaba iyagii taas waxaana markaa jooga oo dee isaguna dee kolley arrinta u diyaaro ahaaba cabdillaahi ibnu zubayr iyo markii taasi ay dhacday ee lagaba saaray taa ayuu arrinkan cabdillaahi ibnu cumar yidhi beecaynu gallay beecadii haddii laga laabmo waa qadri waa kaa rasuulka ilaahayna sheegay ninkastoo cahdigiisa iyo ballankiisa buriyo in dee calan loo taagayo la fadeexaynayo maalinta qiyaamaha ehelkiisii buu ku leeyahy waayo reer madiina waatay yeeleen iyagiina waa la saariyey ninkaa amiirkaabaa la saaray kolley waana la badnaayo ansaar iyo qorayshii cid kastaaba arrinka way kuba jirtay beecadiisii bay markaa ka baxeen isagina markaa waa nooliyey yaziid
markaasuu ehelkiisii intuu ururiyey buu ku leeyay khadamkiisii xadiidkana uu sheegay ruuxa aan ogaado inuu beeca luqunteena ku sugnayda uu kaba baxay ama cid kale uu maanta la mubaayacoday aan ogaado halkaasaan ku kala go-aynaa ku kala hadhaynaa taas buu yidhi oo taasi waxay noqonaysaa wax na kala reebaya na kala saaraya na kala goynaya ayay noqon bal arrinku taas buu ahaa kolley arrinkiina dee wuxa uu kuba socday ciidan dhan inuu soo diray oo nin muslim ibnu cuqba la odhanayey uu hogaaminayay shaam laga soo diro oo madiine loo soo diray markaa ibnu zubayrna maka ayuu joogaa oo isaguna dee bal halkaas ciidankaas ninkaasi waa salafku waxay kuba magacaabi jireen muslim markaa magaciisa beddelkeed musrif madiine ayuu yimi korkeedii buu yimi reer madiine dagaal bay iyaguna u diyaar garoobeen markii dagaalkii god weyna ay qoteen ayay waxyaala dhaceen ciidankii reer shaam ayaa mala reer xagga kale ka soo geliyey khandaqii oo takbiirunba xagga damka adigu reer madiine way jabeen markaas dadna waa la laayay kala duwan waa dagaalkii la odhanayay yowm alxara 63 hijraduu dhacay kolley markuu sheekhu raximahullahu tacaala halkaa khulaasaynaya waa eegi doontaane waxaa ii dhacay dilxija 30kiiba sanata 30 faxaarabuhu laakiin safxada ku xigtaba dee 63kii 30kii iyagu dadkani mabay joogin cuthmaan khilaafadiisii baa yaday marka halkii 63 ahayd ayay 30 dhacday walow safxada ku xigtaba ay saxantay marka dhibta dhacday mala amarna uu ku haystay oo isaga amarka soo siiyay haddii marka hore aad u yeedho arrin ay socon weydo dee dagaalka ku qaado haddaad kaba qaalib noqoto 3 cisho ku fasax madiina ciidanka dee 3 cisho ayaa lagu fasaxay oo wax la dilay wax la dhacay adigu dhib weyn baa dhacday oo 3 cisho oo ciidankii lagu sii daayay dabadeedna waa ka baycu iyagii ka qaaday inay addoommaba u yihiin yaziid ibnu mucaawiya taasaa baycad ee intii hadhee lagaba adkaaday ayay noqotay haddana ciidankiisa wuxuu dhaafay xaggii maka ayuu uba dhaafay intuu dhexda socday buu ninkii musrif ama muslim ibnu cuqba uu dhintay markaa dabadeedna iyagoo halkaa jooga ayaa yaziidna dhintay oo ciidankii waa kala tegay oo markaasa ay noqotay ibnu zubayr in dadkii la mubaayacoodaan oo xijaas oo dhan ciraaq masar dhulkaas yaman isagii ay la mubaayacoodaan waxaa harsanaa markaa shaam oo kale marwan ibnu xakam baa joogay meel uun urduna mooye inta kalena malaa dad isagoo ibnu zubayr taabacsan baaba markaa joogay isagoo marwan kuba talagalay inuu ibnu zubayr u yimaado oo uu baycadii la galo kol hadday arrintu taa tahay ayaa cubaydullah ibnu ziyaad oo ciraaq laga soo saaray ayaa yimi ninkii ciidankiisu xuseen ibnu cali dilay oo kale iyo markaasay ra'yigiisii bedeleenoo dimashq baa adigu ama meel marjuu raahid la odhanayo dimashqa ayaa dagaal ka dhacay daxak la odhanayo halkaas oo isagii baa laga adkaado oo dhinto adigu markii dambe isagaa la wareegay masarna uu la wareegay haddana 9 bilood dabadeed intuu dhinto inankiisa cabdilmalik ayuu u sii magacaabay bal arrimuhu sidaas bay ahaayeen marka ibnu cumar wuxuu leeyahay beeca luqunteena kuba sugnayde ka baxani waa beecadii cahdigoo la buriyo waana kaa rasuulka ilaahay sheegay ehelkiisu busaa kuba yidhi kolay khulaasada arrintuna taa weeye ilaa markaa dambe mucaawihii labaadna intuu dhintay isagoo ay muddo yarba un baabu hayee ay dee noqotay ibnu zubayrna inuu aad u shuhuroobay xaggaasna marwaan adugu bal waxa weeyaan la wareegay shaam markii dambena masar la wareegay 9 bilood dhexdoodna waa dhintay inankiisa cabdilmalik oo dee ugu dambayna waa tii cabdullaahi ibnu zubayr iyo xajaaj inta la soo diray halkaa laguba diray oo arrintu mar kale ay saa ku noqotay bal arrinku sheegayaana haddaba kaa weeye bal waxyaalaha hadalladiisana eegta حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد مركي إن الزياد نكي لأورني وفتن ما قلت الروان فتنتي مسلمين تدحوا ذا دعدا وقت جاهرة يوم مروان بالشام الشام أي كبسوا جنايين أيوة والثبا كل ظاهر كعبارته si wax iyadoo labadaas dee arrinkoodu shaam ay kuba sugayiin ibnu zubayr inuu dee isaguna uu ismagacaabay oo maka uu kaba markaas halkan wadaba uu ku soo boodeedaba kaba cabire laakiin daahirku waxa weeye cibaaradu say ku sax noqonaysa waa saddexan siraacinayna oo sabab ibnu zubayr ina zubayrna uu ku booday macna uu la wareegay in weeye bimaka tamaka yada xijaazba oo wasaba alqurraa nimankii qurraadaha asalka hore qurraado وكتابك حق الدحين وقبل من دون تبل مجلد كني أصل قارس حديث كي أها
alquraa waxay ahaayeen cumar ibn alkhadaab dadka majliskiisa la fadhiista ee uu la tashado bay ahaayeen waa dadka culimada ah ee waxa weeyaan dee xadiidkii iyo kitaabkiiba aqoonta u leh cubaadana ah taas bay alquraa tahay maaha magacan alquraa loo yaqaana way ka acamsanayd laakiin halkan kuwa imika maqsuudkii maaha waa alculamaa alcubaad waxa weeye oo ayay laftigan alquraa tahay kuwa cumarna majliskiisa ee uu isagu la tashan jirayna kuwaasay ahaayeen waa waqtiga umuurahani dhaceen ayaa niman khawaarij ah iyaguna waa kuwa cibaadada badnaa ee khawaarijtii oo nin naafic ibn al-azraq xogaaminayo ayaa basre iyaguna cubaydullah ibn ziyaad markii la saaray ayay basre iyaguna la wareegeen oo nimankaas markii dambe ahwaasaba tageen haddaba waxyaalahaasaa dhacay shaam waxbaa jira xijaazna maka iyo dee ibnu zubayr halkanna nimankii khawaarijta waa kuwan basra dee markii qoladan la saaray ayay waxa weeyaan la wareegeen intaas baa arrinku ahayd waana hadalku inoo soo socdaan xaggan ibnu ziyaadkana waa nin cubaydullaahi ibnu ziyaad la odhanayey aabbihii ziyaad ibnu abihi waana ninkii markii dambe ziyaad ibnu abi sufyaan laba yidhi ayuu ahaayo waa ninkii ciraaq iyo ama taas basre iyo kuufiya dhulka markii hore waqtigii mucaawiya markii hore cali buu ama amiir almu'miniin buu ka mid ahaa dadkii isaga raacsanaayoo markii cali la dilay dabadeed ayuu isagu dhulkaas ayaa loo dhiibayo uu hayay nin xaasim oo daabidan oo ahaa markuu dhintayna inankiisan cubaydullaahi ibnu ziyaad ayaa qabtay basrana joogay haddaba markii waxyaalahaasi dhaceen ee mucaawiya ama yaziid intuu dhintay xaggana marwan iyo dee arrinta aan sheegayna ay kaba dhacday ayay reer basra ay saareen isaga walow cid uu magan galayoo kuwii ay markii dambe isagoo ilaa 100 nin wata ay shaam gaadhsiiyeen bal markaa haddaba markay taasi dhacdayna waa ninkan marwan ra'yigiisa bedelay ee yidhi hala mubaayacon ibnu zubayr adiguba markaa ismagacow kuba yidhi haddaba marka taasuu sheegayaa waa markuu ugu tegay xagga iyadoo basro laga saaray waa kuwaas ibnu zubayrna xagganuu jooga maka alquraana waa balsar qudrada halkana waa khawaarijtii iyo nimankaa naafic ibn al-azraq watay haddaba marka waxyaalahaasi dhaceen buu leeyahay abulminhaal taabicigan baa leh sayaar ibnu salaama aabihiina way wada socdeen ayaa wuxuu yidhi fandalaqtu waan tegey maca abi aabbahay anigoo la socda ilaa abi barzata alaslamiyi saxaabiga abu barza nadlo ayaanu xaggiisa u kacnay bal dee si waxyaalahaasaa jira fitantaasaa jirta iyo dhibtaas badan baa jirtee say umuura saxaabigan bal ay wax uga maqlaan ama wax naseexa ha noqoto ama wax kale aabbihii isagu uu yara aabbihii bay israaceen oo waxay ugu tegeen abu barza xataa dakhalna calayhi ilaa aan u soo gallay fii daarihi gurigiisii baan ugu soo gallay walxaal huwa jaalisun uu fadhiyo fii dilli culiyatin laamtuma shadnee ya-da ayaa shadan caynta damadeed iyo kasradeeduna waa labadaba waa laba wejoo bannaan xagga luqada adigu waa qurfo iyo maqsin uu lahaa la arka meel sare kuba taalay harhkeed buu kuba sugnaa oo min qasabin qasabkan oo aalahan iyo waxyaalaha saaba qurfadani kaba samaysnayd ayuu harhkeeda kuba sugnaa fa jalasnaa ilayhi waanu la fadhiisanay fa anshaa abi aabbahay baa wuxuu bilaabay yastadcimhu lxadiida ay macnaa waa yadlubu minhu lxadiid inuu bal warramo ee rasuulka ilaahay saxaabadiisii weeye waxyaalahan fitantanna waa taba joogta bal inuu xadiid uba sheego yastadcimuhu haddaan dhaha yastadcimuhu istadcama sintiyataadu markay dalab faa'iideynayso istadcamahu macnaa wuxuu weydiistay weeye cunto ayuu weydiistay oo sida xadiidkii istadcamaka cabdi fulaan yastadcimhuna waa yadlubu minhu lxadiida markaa inay tadi dalab hadday taaseen wuxuu ka dalbaya bal inuu uga warramo umuurahan iyo waxan uu wax kaba yidhaaho faqaala wuxuu uhi ya abaa barzata abaa barziro waa tan istidcaamkiisii alaa tara miyaanad arkayn maa waqaca fii naas dadka maanta dhibtan haysata iyo waxaanay ku dhaceen iyo tafaruqan miyaanad arkahayn fa awalu shayin markaa wuxuu yidhi abubarz waxaa odhanaya abulminhaal shay kii ugu horreeyey oo samictu aan maqlay takallama bihi isagoo ku hadlay waxa weeye inii ixtasabtu cinda allaahi annii asbaxtu saakhidan calaa axyaa'i qurayshin inii anigu ixtasabtu kushmiyahanna axtasibu ba ahayd oo mudaaric lagaba cabiro macnaa wuxuu ka dhigayaa diidmadan uu dadkan diidan yayo ficilkan iyo tafaruqan iyo dadkan uu leeyahay waxay isku wada haystaan ninka samaaxtinun baa la ysku haystaa wax kale maaha mahadiin wax la yskuba haysto
cadhada uu cadhaysay uu ka dhigayaa shay cibaado ah oo ilaahay uguma dhowaanayo halkaa ilaahay agtiisa ajrigeeda kaba sugayo ixtasabtu cinda allaahi waxaan daacina ilaahay agtiisa aan dhiganaya aan rajaynayaa ajrigeed iyo hawaabkeed anii anigu asbaxtu inaan ahaaday saakhidan mid cadhaysan calaa axyaai qurayshin dee nimankan qureysheed dee iyagaana markaas khaasatan marwaan oo kale iyo dee cabdillahi ibnu zubayr iyo iyaga ahaayeene xaalooyinkood iyo reerahoodan aan uba cadhaysnahay markaasaa wuxuu uhi inakum idinku dee isagii qoladan ula hadlayo waa dee carabtii guud ahaan buu sheegayaaye yaa macsharalcarabi carabey kuntum waxaa ahaydeen calalxaali xaalkii baa ku sugnaydeen alladii xaalkaasoo calimtuma aa ogeydeen oo dadkii jaahiliga waqtigeedii dee kolley abubarza marka la eego ninkan dee haddii aan u soo gaadhinna warka u ahayaa waa abulminhaal oo waxa weeyaan taas in aabbihii waxa weeyaan wixii waa garanaysaano waa ogtihiin xaaladii aa ku sugnaydeen ow min adillati dullinimo ah waalqilati yari ah wadalaalati hallow dee xagga marka la eego dillinimo dowladihii kale jiray inna carab waxba lagama soo qaadi jirin oo qiimo lama ilahayn oo bal iyagaa lagu kala hoos jirayba in xagga marka la eego dee dalaalan oo kuwa iscunaya islaynaya iyo dee yaridii taas baa garanaysaan markii intaan islaamku iman si aa ahaydeen wain allaha ilaahay anqadakum wuu idin badbaadiyey bilislaami islaamnimadku idinku badbaadiyey iyo wa bimuxamadin sala allahu calayh wasalam diintaa islaamnimu idiin soo dejiyey iyo nebi maxamed uu idiin soo diray baa ilaahay idinku badbaadiyo idinkaga badbaadiyey diladii qiladii waa kuwa dee ka talinayaba dhulkii qaysar iyo kisra ay kaba talin jireen iyagiibaa ka talinaya ilaa masar oo iyagii baaba ah saadadii dadkii markaa dhulka ka dhowaayo dhan madaxdoodii laga heebeysanayo markaa dullinimadii iyo yaridii iyo dalaaladii wixii oo dhan ba ilaahay waa idinka badbaadiyey xataa balaqa ilaa uu gaadhay oo bikum idinka maa tarawna oo bacnaa arrinkaasi badbaadadaasi idinla gaadho idin gaadhsiisayba waxaan ammaanta arkaysaanoo min asiyaada waalkahra waalghina iyo taasba saasaa ahaydeen wahaadii dunya haddaba adduunyadanna dee waxaan aa arkaysaan oo taasa iyo wahaadii dunya adduunyadan allatii afsadad baynakum adduunyadan idin kala fasaadisay idin dhexdiina idin waxbaabisay dee aad sababteeda isku laynaysaan mulkigan laysku laynayaana waa adduunya u leeyahay markaasaa wuxuu uhi ina daaka kaa aladii bishaami waa marwan ibnulxakam ninkaa shaam ku sugan wallaahi baan ku dhaartay in yuqaatilu ma dagaalamayo ilaa calaa dunya adduunyun buu dagaalamaya adigu aad madaxdan qotid iyo cidda isaga raacsani wax diinoo uu markaa u dagaalamayaa taasi ma jirtee waa adduunyo wuxuu ku dagaalamayaa wa ina haa-ulaahi kuwan aladiina kuwaasoo bayna adhurikum dhexdiina ku sugan waa basro marka la eego waa nimankaa dee qura'da uu ka cabiray eleni waa khawaarijtii kuwaasna wallaahi baan ku dhaartay in yuqaatiluuna intu waa tii naafiyada ahayde iyo dee halka horebe ma dagaalamayaan ilaa calaa dunya waxaanay dhulka ula wareegayaan ee u dagaalamayaan dadka u laynayaan waa adduunyo uun wax kale maaha waina daaka kaa aladii kaasoo bimakata maka ku sugan waa cabdillahi ibnu zubayr buu sheegayaa wallahi in yuqaatilu ilaa calaa dunya kal hadduu ninku madaxtinimo doonayuu leeyahay oo uu tan doonaya dee waxa uu doonaya waa adduunyo uun maaha diin iyo taas iyo waxaa cadhadooda iyo dagaalkooda iyo umuurahaasi haddaba adduunyadaas ayaa idinkala fasaadiso xaaladu taa wey baabku wuxuu baabaysnaa idaa qaala cinda qowmi shan weli xadiid baa inoo ama laba xadiid baa inoo hadhay uma kharaja faqaala bikhilaafihi bal markaa in xadiidkaa hore cabdullaahi ibnu cumar xagga baabka ugu munaasib yahay weeye waa ninku markaa dad buu la joogaa wax ku hadlay hadhowna wax ka duwan buu kuba hadlay xadiidkaa ibnu cumar si ugu markaa u munaasibka yahay waxa weeye dee in kol haddii marka dambe xuduurka iyo walaada jooggaas aad wax tidhi oo markii dambe aad ka tagtayna hadalkuu kaba duwan yahay bayco adoo galay khalcigan iyo waxyaalahaasi ay jiraan bal markaa dee taasi waa nooca imaka ama qadriga ah ama in halkaasi idaa qaala cinda qowmi shayan uma kharaja faqaala bikhilaafi kolle waxaana inoo iman doonta kitaab alaxkaam dee in ninkii madaxdaa la ammaano marka lala joogo marka laga baxana wax kale la yidhaha taasi wax toosan inaanay ahayn wax fiican aanay ahayn oo wax dee makruuha ay tahay ama la naco waa wixii noo dambeeyaba bal markaas taas halkaasaanay nooguba iman doontaa ibnu cumar oo la weydiiyey markaanu madaxda la joogno waxbaanu odhanaynaa markaanu ka tagnana wax kalean idhaahnaa
markaasuu ibnu cumar yidhi kunaa nacuduhu nifaaqan wey arrinkaas waqtigii rasuulka ilaahay ama waxaanu ku tirin jirnay iyo intii dee la hagaagsanaa munaafiqnimo taasi nifaaq baan kuma tirin jirnay bal taasba weeye in xadiidkan abubarsana xagga ugu munaasib yahay waa ka sheegay kuwaasi waxay u dagaalamayaan ma aha horta diin iyo xaq inay u nusreeyaan laakiin way sheeganayaan waxay daahirsanayaan inkasta diintan xoogeynayaan u dagaalamayaa buu leeyahay laakiin fi lbaatin waa liajli dunya mukhaalafadii baa tanna kuba sugan mukhaalafadii baa kuba sugan ama xadiidka kale aad buu inooguba muuqanayaan waana kan axaadiis inoo socoto حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال رجاج هرينو صومر السوق وهروك أبو الشهاب كاسنت كوركوس وانا عبد ربه من نافع بالويدا إن واصل الأحدب من واصل بن حيان بالرحدة وكي تورت لها روحنا هدي وحلي هي ساسو كلا إن موحون لي هي oo ama waaba dhutinaya ama waa indhala yahay waa cawaran yahay waa taas haddii waxaan lagu sheegaa uu looga jeeday in lagu ceebeeyo waa dembi iyo taasi wax xaaraama oon bannaanayn bay noqon laakiin haddii noqday wax lagu yaqaano isagaa lagu yaqaanaayo haddaan kaa laguba sheegin lamaba garanayo marka caynkaasee tacriif loogaba jeedo ee iska jaa'is bay noqono horeynu ala carajiyo ala camashiyo waxyaalaba kitaabka uguba soo aragnay markaa tanna taa baabkeedi weeye waasil ibnu xayaan bal taasba waxaana shaarixu leeyahay isaga iyo acmash isla dabaqay ahaayeen laakiin ninkan baa geeridiisu in badan horeysay kole kitaabka taqriibna acmashda wuxuu ka dhigaa qolada shanaad ee ruwaadda waa dadkii taabiciinta ugu yaryaraa weeye waasilna wuxuu ka dhigaa kuwa lixaadoo waa isla mucaasaroodeen xagga mucaasarada waa isla dabaqo laakiin kala daayan saxaabo arag dee atbaacu taabiciintii bay yidhaahno xagga marka la eega haddaan in aragtida eegno dee laba dabaqay kala noqonayaan saadisa iyo khaamisa ayuu ka kala dhigaa taqriib xagga geeridu sheegaya iyo sharaxa idinkuba suganna 120kiibuu waasilul axdab dhintay acmashka uu kala mid dhigayna bal ka dabaqa horeeya markaynu eegno xagga ru'yadana 147 ama 48kiiba ayadoo san buu leeyahay geeridiisaa horreysay waa sharaxa waxa ku sugan haddaba can xudayfata bn اlyamaani qaala ina almunaafiqiina munaafiqiintu alyowma maanta sharun minhum way ka shar badan yihiin من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشر من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وقتgiisa kuwii joogay munaafiqiinta kuwan maanta jooga ayaa ka daran oo ka shar badan marka muxuu taa ku cileeyay kaanu waxay ahaayeen yooma idin maalinta markii rasuulka Ilaahay sallallahu wasallam alayhi waqtigiisii yusiruna wa qarsanayeen waxaan gaalnimadan iyo waxaan ay haystaan way qarsanayeen oo may daahirsaneen afka shahaadadii bay kala imanayeen dadka muslimiinta ay ku dhex jireen waryoom iyo jaruna markii dee fitantani timi san loo kala baxay loo kala jajabay kii wixii markaa waxay qarsan jireen kuwani waa cadaysanayaan way la jahrayaanba waa kuwa aan wixiiba kaba waabanayn oo iyagu cadaysanayo maanta markaa kuwan imika jooga ayaa ka shar badanba kuwii waqtigii hore ee rasuulka Ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi joogay bal xadiis dariiq labaad حدثنا خلاد بن يحيى وحديث كذا طريق لبعض العلماء قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء وجابر بن زيد عن حذيفة قال إنما كان النفاق وحوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت رسول كلاهي تاسي النفاق بيهاي فأما اليوم ما أنت فإنما هو الكفر بعد الإيمان ذاتك المسلمين تأمرك يسبدلان حالته دي حالة كلا أي نقطة الروح الإسلامي هو الرجال قال نوبي أيو نقطة يوبر في دوت سنبي وقال شر بدنتي وقال لي بدنتي ما أنت ما النفاقي وبطن أو لعضيسان يوحي للتاريه كواسوي لومان يسقرين ينه مركبه كفر بعد الإيمان تاسبل الحديث كان دم حقه وده بابك وقام مناسب هنا وظاهره النفاق محويه وحبال إن قرصنيه وحال قرصنيه وحكد وانبا لظاهر صنيه وحي أفكا لقبلها وقتية قاركود وحكد وانبا وقرصون روحي وأنا بابك إذا قال عند قوم شيء ثم خرجت من فقال بخلافه دواء النفاق يا منافق نمو وتاء حديث كابن عمر يدنا إنه قلت من لبدا وحشقني وجهك إذا وحويان لو قبت شيء إما كان مناسبة أي تاي هل كان صحيح مركا شرحية ظهره أو مركو
kolley lamaa khalaca ahlulmadiina yaziid bnu mucaawiya halkaa markuu joogo uu xoogaa wado ayay aniga nuskhadayda dhacday 30 laakiin waa ta aan leenahay waa saxanta waa ansaxaynaa iyadoo marka uu dee xashamahu inta ka horeysa uun uu ku keenay 63 bal waxyaalo kaloo iyadna sixid u yar baahan way jireen casharkaa yar dee horena looma arkayo oo waxa weeyaan markaa marwaan iyo wa shucbatu bnu zubayr baa meel ii taalla waxaana sawaabku yahay marwaan wa shiicatu bnu zubayr bay dagaalameen marwaan iyo dadkii ibnu zubayr raacsanaa marjuraahid markay ku dagaalameenba weeye meelahaasna waa meelo saaxid oo yar baahan casharku laakiin way noo soconayaan baabun laa taquumu saacatu xataa yuqbada ahlulqubuuri laa taquumu ma dhacayso asaacatu qiyaamadu oo suurta lama afuufayo qiyaamaduna ma dhacayso xataa yuqbada ilaa la kanto oo lagu tamaniyo ahlulqubuuri dadkii ahluqubuurka oo macnaa waxa weeye markay fitantu adkaato dhibtu ay badnaato noloshii la jeclaabaaba la nacayaa geeridii laga cabsan jiraaba laga cabsanayno markaa maxaa dhacaysaa ruuxaa dhibtu ay ku badnaatay fitantaa imanaysa aakhira zamaan shiddadii ay badnaatay ayaa qabri markuu soo agmaro ayuu odhanaya alla maan qabrigaa ku jiro maan beri horeba dhinto mayd la soo mariyo oo la sido ayaa madaxii loo looyayaa la idhaaho waa fiican yahaybe haddaan halkaa anigu ku jiro kalasda ahi ayaaba ii fiicnaan lahayd halkaasay gaadhaysaa xaaladii oo macnaa qiyaamada ma dhacaysa ilaa arrintu taa noqoto shiddo dhacday daraaddeed dhib badan oo jirto daraaddeed fitan ruuxoo dee markaa in adduunyaba la naco dadka ay ku tamaniyaan inay dee dad dhintayba ay noqdaan ama dadka xabaalaha ku jira ay ka mid yihiin baabku taasuu baabaysan yahay xadiidkaaba inooguba imanaya wuxuu uhi xadaثna ismaaciilu qaala xadaثanii malik can abi zinaadi can ilcaraji can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam markuu sheekhu xadaثna ismaaciilu qabanayay fatxubaari waa dabcadii daawidkan isaga markaaba u arkaysaane aniga waxay ii taalla nuskhadayda xadaثna ismaaciilu huwa bnu uweysin saasunba dee ninku inaguma cusbay in badan baan soo baray abi baa meesha ka dhacsan waa ibnu abi uweysin de waayo nin aynu in badan soo arkaynay ooye waa ninkaa imaam maalik baaba u abti ahaaye ismaaciil nin kale walaalayiina oo wax ka wariyana horaynu marar kala duwan u soo marro halkaa abi baa dhacsano waa ibnu abi uweysin weeye wuxuu yihi marka abu hurayra can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala laa taquum ma dhacayso asaacatu qiyaamadu xataa yamura ilaa uu soo maro alrajulu nin biqabri rajuli nin kale xabaashuu soo mara xabaal buu soo marayaa fayaquulu markaasaa wuxuu odhan yaa laytanii makaana lamaan halkaa ku sugnaado lamaan halkaa ku jiro taasuu odhan waxa hayaano ma aha dee waxa weeyaan diin iyo waxyaalahaasoo diintiisii uu leeyahay waad ka fitnoobaysaa diintiisii uu leeyahay waad xaggii diineed baad ku halaagsamaya oo geeri ugu tamaniyaya maaha ee arrintu waa balaayo iyo imtixaanka iyo rafaadada jira un weeye walaysa bihi diin ila albalaa ma aha waxa iyo maqsuudka waxaa hadalkaa ka soo saaray diintiisii oo u baqanayo oo ka baqanayo inuu fidnoobo taas ma aha ee waxa weeyaan waa imtixaanka iyo balaayada rafaadka kadeedka iyo dhibta badan ee jirta ayuu dee lagu tamaniyayaaba ciddii xabaalaha ku sugnayd ayaa iyo inuu ruuxu hore u dhinto ayuu kuba tamaniyayaa kole hore inuu soo maray inuu ruuxu inuu geeri ku tamaniyo in dee laynoo diiday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laakiin waa dhib isaga haysta daraaddeed oo xanuunsanaya waa faqiir dhib kala haysta taa daraaddeed inuu ugu tamaniyo geeri haddii aanu ka tegahayn saynu soo marray ha yidhaaho ilaahow inta hadday dee noloshu ii khayr leedahayna inoolaysii haddii ay geeridu ii roon tahayna iyadana oo iiga khayr badan tahay inaan sii noolaadana idil intaa ha yidhaha haddaanu daynahayn weeye marka horeba ha iskaba daayo bal kolley taasaynu hore u soo marrayna waxay ku xambaarantahay markuu wuxuu yahay dhibaato adduunyo kaba haysata taasba wey ama diintiisii hadduu u baqanayo uu markaa taas oo uu leeyahay uma badbaadaysid dee dad salafkii ka mida cumar ibnualkhadaab iyo kaba mid yihiin cumar ibnu cabdilcasiis iyo qolooyin kalea yeelay marka xagga diintooda iyagoo u baqanaya ama diintoodii taas ayay geeri uguba tamaniyeen kanise waa sidaa xadiidka duruqdiisa kale kuba sugan waxa ku sugani waa taa ka yeedhsiiye waa albalaa
taaba weeye macnaha taasaa iman doonta in dadkii xabaalaha la kanto lagu tamaniyo waa markay fitantaa waaweyne ay muuqato iyo dhibaatadaa weyne ayaa nolol oo dhan ba la nacayaayo taasaa iman doonta rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh asaadiq almasduuq waa umuuraha inoogaba warramay kolley markaa uu xataa yamuro sharaxaa wado qolooyin buu markaa u aqraba bacdu shuraaxi almasaabiix meel bay iigu sugan tahay kitaabka almasaabiix la idhaa qolooyinkii sharxay ayaa barhkood qariib laba yimaadeenoo faqaala almuraadu biddiini huna alcibaadatu markaa waa dee habkay kuma fasireen alcibaada ma jirtee waa halkaa cidday u taalla almuraadu biddiini huna alcaada waa caado waxa laga jeeda ujeeddadu caadadiisii baan taa ahayne laakiin may waxa weeyaan diinkii baa loo jeedaa maqsuudka waa tan uu leeyahy waa wax qariiba diinkii baa loo jeedaa waxaan ka yeedhsiiyey ruuxana waa balaayo iyo imtixaan iyo dhib waana waxyaalaha dambeeya ay iman doonaan kolley caawa casharka ayay inooguma sugan yihiin bal waxyaalaha dhici doonee rasuulka ilaahay kaba warramay baabu taqayuri الzamaani xataa tucbad alawthaanu baabu taqayuri الzamaani wuxuu u baabaysan yahay zamanka isbeddelkiisa uu isbeddelayo ilaa ay dhacdo jasiirat alcarab in lagu caabudo sanamadii oo dib looguba noqdo macnaha waxa weeye aakhira zamaan xaalkaa dee waa kaa islaam ah rasuulka ilaahayna uu yidhiba shaydaanku wuxuu ka quustay an yucbada fii jasiirati alcarab in jasiiradaa jasiiratulcarab lagu caabudo waa kaa quustay oo dee asnaam iyo waxyaalaha iyo ilaahay duunkii la caabudo loo shariig yeelo laakiin wuxuu markaa dee isagii markaa dee uu ku kaaftoomayba waa inuu isku diro dhexdooda uu fitan geliyo laakiin markay waqti socdo dadkii mu'miniinta dhulka way ka dhammaan doonaan bal inta ugu dambaysana mar keliya ayaa nafta laga wada qaadi doonaa waa nebi ciise iyo dabadeed taasba weeye ayaa laga qaadi doonaa iyo yaajuuj iyo maajuuj iyo dabadood waqtiyadaa dabadeed dee markay gaalo iyo dadkaasi ay isugu hadhaan waayo qiyaamadu ma dhacayso ruux iyadoo allah lih uu joogo waa shiraara naasuun ayaa maxaa dhacaya wixii hore in laguba laabmo taasba weeye xadiidkan ku arki doonaa xadaثana abulيamaani qaala akhbaranaa shucayb can الzuhriyi qaala saciid bnu اlmusayibi akhbaranii waxa ii warramay abuu hurayrata ayaa ii warramay san marar kala duwan soo sheegnay waa dadka axaadiidiisa aad u badsaday walow imaam yahay dadkii taabiciintaaba raggii ugu mudnaa yahayba ina abi hureyrena waa qabaye ayaa ii warramo wuxuu iigu warramay ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi laa taquumu ma dhacaysa saacatu qiyaamadu xataa tadariba ilaa isgaraacdo isku dhacdo alyaatu nisaa'i dawsin reerkii waa abu hureyra ka dhashay weeye reer daws dumarkooda baryahoodii ay isku dhacaan calaa dilkhalasati waa sanam ay lahaan jireen oo dee markii dambe la burburiye sidayn hore soo maray jariir ibnu cabdilaahiya loo diray sanamkoodii ayaa haddana dee boodhka laga tumi doonaa dib bay u soo saari doonaan ama u samaysan doonaanoo iyagoo ku dawaafaya ku wareegaya yimi oo kale ayaa dumarkaa dee badnidooda iyaba baryahoodu isla dhic ay isku dhufdhufan doonaanba taas ilaa ay taasi dhacdo qiyaamadu ma dhacayso macnuhu waxa weeye uun dee adduunyadan saasun ma ahaanayso islaamkuna diin ka dambaysaa ma jirtee laakiin waqtiyada ugu dambeeya waxa weeyaan waa dee uu markaa meesha uu ka bixi doono dadkii muslimiinta way dhammaan doonaan bal intaanay dhammaan jahli baa caam yeeli doono xadiid xataa shaarixuna meelahan kuba soo qaadanaya ahayd yadrusu washyu islaami kamaa yadrusu washyu thob maradan rinjiga iyo midabada lahoo kale markii aad u gabowdo dee waxaasi way baaba'an islaamkuna saasoo kaleu noqon doona ilaa ay dhacdo inaan la garanayn salaad waxay tahay iyo soom wuxuu yahayoo ay dhacdo barhkood inay laa ilaaha illa allah un garanayaanoo marka la weydiiyana aabbahay iyo aabbayaashayaan ka maqalay iyagoo odhan jiray heerkaa la gaadho marka dambena dee waaba ruux mu'min oo dhamme horta intay xaaladaasta waa caam laakiin inahay ku hadhsan yihiinna marka dambe waa dee dhammaanayaan deedna wixii horea dib loogu noqonaya markay dadka ay dee kufaarta ah jaahiliinta cilmi ma jiro waxba ma jiro ay ku laabmaan oo dumarkii reer dows iyagoo ku dawaafaya sanamkan iyagoo dee isagii waxa weeyaan taa ayaaba alyaat waa jamcu alyatin waana barida oo kale ayaa dee markaa dhaqdhaqaaqooda iyo dee socodka iyo isweydaarashada ayaabay taasi imanoo bal adigu sanamkii baa dib loo caabudi doonaa wadulkhulasati
daaqiyatu dowsin waa sanamkii reer dows allatii sanamkaasoo kaanuu ay ahaayeen yacbuduuna fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga kuwa caabuda horena waqtigii la dumiyey dee waa tii aynuu soo dirnay aynu soo marray la burburiyey xadaثna cabdالcaزiiز bn cabdالlahi qaala xadaثanii sulaymaan can hawrin can abilkayثi waa sanad reer madiina dhammaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala laa taquumu ma dhacayso asaacatu saacaddu xataa yakhruja ilaa uu soo baxo rajulu nin min qaxdaana reerkaa qaxdaan la idhaaye carabtii dee waxa weeyaan ma cadnaaniinta maaha oo qolooyinkii kale kaba midi nin sidaas uu soo baxo yasuuqu naasa dadka kaxaynaya bicasaahu ushiisi macnaa amarkii buu qabsanayaa maamulkii buu la wareegayaa isaga arrintii la wareegayo ruux jaa'iro weeye dadkiibuu ushiisa laba dhacayaa ku kaxaynayaadu waa tasalludka iyo isagu inuu dee waxa weeyaan kaa maamulaya iyagii madaxda u noqday uu yahay ay dadkiina u hoggaansan yihiin uu ka qaalib noqday dadkiina way u hoggaansan yihiin nin saasi ilaa uu soo baxo iyaduna waa waxyaalaha dambe ashraadda saacadda oo horena xadiidka waxbaan ugaba soo marray bal iyadana intaanay adduunyadu dhammaan nin reerkaasa oo dadka ka qaalib noqonaya waxa weeyaan dee iyagii ay u hoggaansamayaan ayaa soo bixi doona weeye asaadiq almasduuq baa kaba warramay waxyaalo ay waxa weeyaan uu ka warramo badan oo ka warramoo dhacay way jiraan iyo waxyaalo iman doono saa kuwii hore ay u dhaceenba aanu arki doono waana umuuro inoo soo wada socda baabu khuruuji naari waa dab soo bixi doona rasuulka ilaahayna kaba warramay kolley waa laba daboo kala duwan bay noqonaysaaye taas bal wixii kuba yimi waana aclaamtii nubuwada iyo mucjisaadkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayuu baabkiisii yahay وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أول أشراط الساعة ساعد علامات كواوين لدي ودي علامات بدن بيلادهي كوا يرير ويه أو يجو مركا وري يدو ضمبيسا قيامة الله أركيو رسولك إلهي صدريتان كيسي بابا هذا نبي آخر الزمان أيها waxyaalo kaloo kala duwan oo rasuulka ilaahay ka warramo kitaabkana waxaan ku soo aragnay kutubta kalena waxyaalo dhacay ah barkoodna ay noo iman doonaanba iyo waxa weeyaan imaka dabkan aan ahayn oo la arki doono taasi waa ashraad ina waa ashraadu saacatu lkubraayo waa tobaneeyo kolle xadiid muslim ku wariyey umasweeyey kuba yimo dajaal iyo yaajuuj iyo de waxa weeyaan iyo yaajuuj maajuuj iyo ay umuuro kale kaba mid yihiinoo dabkana uu kaba mid yahay marka calaamaadka waaweyn ee saacadda kol haddii calaamaadkaasi muuqdaanna way isdaba socdaan ha isdaba socdeen hadhow qiyaamadii wax badani kamay hadhin oo iyaga dabadood waa dee wax la sugayo uun oo markaas maaha waa masalata waqti un weeye maaha waqti dheer inuu u dhammayn uu ka markay waxyaalahaasi dhacaan marka calaamaadka waxaa ka mid ah xadiidkan naartana hore inuu soo maray qaybtan ee naar weynoo malaa noocan cadan iyo nawaaxideeda ama yaman ka soo baxaysa dadkii dabada ka maraysa oo kaxaynaysa oo xagga ashaamiya u kaxaynaysa taas baa ah calaamaadka saacadda waxyaalaha ugu horeeya ee iman doona walow barhkood aakhir ay timiba laakiin waa calaamaadka waaweynuun kuwa waaweyn ee dabadooda ay qiyaamadu dhacayso dab saasaa ka mid ah oo dadkii dabada ka maraysa oo kaxaynaysa dhinacaasay ka kaxaynaysaa halkaa ay kaba soo baxday iyo xagga shaamiya xaggaasay u kaxaynaysaa bal taasi waa mid taasi iyadu waa wax dambeeyo weli lama arag xadaثna abulيamani qaala akhbarana شhucayb can الزhuriي can saciid bn الmusayibi qaala akhbaranii abu hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala laa taquumu saacatu qiyaamadu ma dhacayso xataa takhruja ilaa ay soo baxdo naarun dab weyne uu ka soo baxo min ardi اlxijaasi dhulka xijaaz uu kaba soo baxo taasoo tudii u iftiiminaysa acnaaqalibil ficilka ada'ana laasimna waa noqda ada'at الnaaru bas haddii waxa weeye mutacadina waa noqdaa wasta halkan imika acnaaq mafcuulkii baan kaba dhigaynaa tudii u iftiiminaysa acnaaqal ibili geela luqmihiisa bibusra waa meel aada u durugsan waaba shaam arrinkuna xijaas buu ka soo baxayaa ilaa taasi ay dhacdo la arko qiyaamadu ma dhacayso bal tan baan ku yar joogsanaynaa rasuulka ilaahayna calaamaadkii nubuwadii iyo mucjisaadkiisii weeye salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo macnuu waxa weeye dab weyn baa soo bixi doona dabkaasi dab yar maaha oo meelaha dhow un lagaba arko
waa dab dee masaafaad iyadoo habeenno meelo loo socdo habeenno iyo maalmo dhan la soconayo ayaa dabkaa iftiinkiisu dee marka la eego weynida uu weynkahay inuu saro aada ugu baxayo meel dheer uu gaadhayo holiciisaasi iyo ololkiisaasi ayaa meelo aada uga durugsan baa la arkayaa bal luquntii geela dhulkaa busra waa shaam ayaa muuqanayso habeen madow iyadoo lagu jiro markay dabkaasi muuqdo luquntii geela ayay iftiiminaysaa laba arkayaa bal waxaa la sheegay berigii ay dhacday meelo aada uga durugsan in lagu qoran jiray waxyaalo waa iftiin laba hayeen bal arrinkan salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waa dee wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxaaya 654 hijrada iyadoo jumaadu thaani waa bishan aan kuba jirno saddexdeedii oo habeen jumco ah ayaa madiine barigeeda oo fulkaan ama buurkaan buu ahaana ayaa naartaasi ay kaba muuqatay aad bay u weynayd markii dambena halkii un kumay ekaane bal dee dab weyn baa ka yimi oo dooxyadii maray oo dhul dhan oo waxgubayay oo dhagxaantiiba xataayo ilaa meel madiine ku dhow uu soo gaadhay markii dambe se waxa weeye ilaahay reer madiina iyadooy taasi jirto ayaa haddana waxa uga imanayey laydh u qabo unbaabay helayeena dhibi may gaadhin kulaylkii holiciina waa ku soo dhowaadeeye ma gaadhin waqtigaasay ahayd raggii kutubta inoo sharaxay iyo a'imadii diinta raggii joogayaa ka mid ahaa imaam nawowi radia allahu canhu waa waqtigiisii qurdubi almuxadith oo kale saaxibu tadkira iyo waxa weye saaxibu tadkira qurdubiga ahaa saaxibu tadkira ayaa isaguna raggii joogay ka mid ahaa wararku marka imaam nawowi baa halkan wuxuu leeyahay warka in dabkaasi soo baxay cinda jamiici ahli shaam wax tawaatur bay noqotay oo dee waa waxaa caamkaa ayaamo dhan baanu dabkaasi jiray oo hore umuu baktiin hore umuu damin dee waana dabkaa weyne laga arkay shaam laga arkay meel ka durugsan maka iyo oo dee 450 kilomitir u jirta iyo dab laga arkayay dee bal halkaa busra kaba sii durugsaneedoo ka fogeyd dhul aada u fog dhulkii intuu iftiin noqday wax lagu qoranayay geela halkaa fadhiya luquntiisii iyadoo gudcur tahay la arkaya iftiinkaasi taas bay ahayd oo ay dhacday 654 hijrada ayay ahayd kolley jumaadu thaanina way ahayd shaam iyo marka warku gaadhay awaaila shacbaan baa warku gaadhayba dee iftiinkaa la arkay uun mooyaane bal markaa iyada taas waa rasuulka ilaahay mucjisaadkiisii calaamadii nubuwada waana arrin dhacday dabkan xijaas kaba soo baxay dee isagu meel buura ayuu kaba soo baxay markii dambena dee wuxuu noqday waadi dhan iyo doox rogmanaya uun isagoo dee samadana meel ilaahay ogyuun ololkeeda iyo taasi uu gaadhay bal markaa waxaan leenahay arrinkani waa dhacay waqtigaasay ahayd jumaadu ula mee jumaadu thaaniya saddexdeediyo habeen jumca ayuu bilaabmay geeninkii dambe muddana waa jiray dhulkaa dheerna waa lagaba arkay a'immada kutubtana waa nawowi iyo rag lahaana waa dadkii waqtigaas dee wararkaa gaadhaye laakiin joogay ee umuuraha taariikhaynaya rag kala duwan bal taas bay ahaydoo waa salawaatullaahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisii waaweynaa bay kaba mid tahay xadaثna cabdullahi bnu saciidin alkindiyu qaala xadaثana waa abu saciid alashaj ninkii la odhanayay kutubta lixdaaba ku wada sugnayd ama wada sheekhaay bukhaarina sheekhadiisa kuwa dhexe ayuu kaba mid yahay laakiin uu ka geeri dambeeyey sanad buu ka geeri dambeeyey bukhaari xataa xadaثna cuqbat bnu khaalidin qaala xadaثna cubaydullaahi wa cubaydullaahi ibnu cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn اlkhadaab in badan baan soo aragnay laakiin yuu ka warinaya can khubayb ibni cabdiraxmaan can jaddihi damiirka can jaddihi ku jira cubaydullaahi buu u laamaya waatan aan idhi waa cubaydullaahi ibni cumar ibnu xafs ibnu caasim markaa waa cubaydullaahi awowgii sheekhiisa markaa uma laamayo khubayb buu kaba wariye laakiin cidda xadiidka laga warinaya waa cubaydullaahi awowgii weeye can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yuushiku waxaa degdegi weeye waxaa dhici doona un ama uu dhan alfuraatu furaat an yaxsira inuu ka faydmo can kanzi min dahabin dahab ah faman xadarahu ruuxa yimaada ee dahabkaas iyo waqtigaa intuu joogo dahabka halkaasna ka dhow ee tagaa falaa yaakhud minhu shayan war waxba oo meel laysku dilaye waxba yaanu kaba qaadanin qaala cuqbatu waxadaanaa cubaydullaahi cuqba waa ninkii marka horeba sanadkee noogu sugnaa sanadkii horuu mawsuul ku yahay waayo cabdullaahi ibnu saciidi baa u dhexeeya un cuqba iyo bukhaari markaa sanadkuna waa mawsuul
xadaثana abu zinaad markaa haddii uu cubaydullaahi sanadkii hore khubayb uu kaba warinayo sheekhiisu ah sheekh labaad buu iyaduna sanadkan u leeyo xadiidku waa xadiid abu hurayre uune وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وحوري يحصر وحو كفيد مدونا عن جبل هلكي عن كنز أهيد أي عن جبل حديث كوا إسلا وضمد وأنت كنزك أم با جبل أي نقطة كنزنا دي مركا ورو قرصونا ولو مركا نصاب حي جبل نوا بدند وحاسب بدن من ذهب ولكن هو حديث كلا رسولك الله صلوات الله والسلام عليه وحي عليه وكور رماء هاي oo dee imaka weli khabar saasa maynaan maqlin oo dee taariikhdana kuma hayno in waqtiyadii sadaam iyo maraykanka iyo weerarka kuba qaada dadka qaar xadiidka ay kuba fasirayeen oo kanziguna waa alkanz alaswad oo waa batroolka iyo waxaa la isku dilaya laakiin dee taasna kolley xaalad yaroo la hubsano in laguba fasiro xadiidkii taas maahe rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegaya xadiidkana inoogu sheegay saa loo arkay wixii horeba isna loo arki doono in webiga furaat la yidhaha ciraaq mara webiga furaat la yidhaha ciraaq mara oo biyo intay kaba guraan dahab aad u badan oo kaa buuroo kaliya uu ka soo bixi doono marka xadiidkana waxaa ku sugan ciddii tagtaa waxba yaanu ka qaadan kolley sababtuna waxa weeyo xadiidkaba dee duruqdiisa kale ay noo caddaynayee dadkiibaa isugu imanaya kuwii ka dhowaa iyo kuwii dheeraaba dahabkan dee ina dahabkina waxaa la jeceliya aada u qaaliga ahe waa la isugu imanayaa dee marka taasi ay timaadana waa la isku dilayaa marka xadiidka waxaa kuba yimi saxiixa ah boqolkii ruuxba 99 baa la dili doonaa dee maxaa oo ruuxiiba odhan doona waxaa laga yaabaa inaan ka badbaado noqdo marka boqolkiiba waxa weeyaan hal ka baxo waa boqolkiiba hal kunkii 10 keliya ay kaba baxaan dee markaa maxay wax tari haddaad waa dilkaasaa jira oo waa la isku dilayaa cidduu gaadhi doono war looma hayo eeyaan laba tegin ciddii tagtaana waxba yaanu isku dayin inuu wax kaba qaato rasuulka ilaahay baa noogaba warramay ee kol haddaynaan taariikh aan imaka sida dabka ay nooga horreeyo kale aynaan lahayn waqtigaasuu dhacay imaka dahabna dahabkan baa lagu fasirayaa batroolkan mandiqadu ay mashhuurka ku tiya laguma fasirayo waxa weeyaan waa dahab waana webigan baa markaa intay biyuhu ka tagaan ayaa waxaasi kaba soo bixi doonaan ee xaaladaasna way iman waana akhbaartaas dee kol iyo waxyaalaha kolley weli dambeeya ay iman doono baabun waa baab fasalkii hore baabkii hore kaba mid oo isaguna waxyaala maqiib oo rasuulka ilaahay ka warramay unbaa umuurahan inooguba imane حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال حارثة بن وهب ووحو يلي وصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقل رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه وله تصدقوا ورصدق الله بحا انت أد وقتها يستان عدد بك قادنا يسأهل إنسان صدق الله بحا صدق الله بحا فسيأتي وحا إيمان دونا على الناس ضدك كو إيمان دونا زمن با إيمان دونا يمشي وصعنا أيوه الرجل نكو بصدقتي صدقتي وإسلام لبح أيو معها سجي الله إيمان يسوع يوبر ضدك ومركا دبركود يسكب علنيه سجي بالله ما يريسنا إياه دبدو لبحيا صدقتي بدوني عد مركا وصيو فلا يجد مركا أنه هين من يقبلها روح كما أقبله معنا وقت قاسا إيمان دوني أنت فرصة هيستان أنت أهل السان ضد باهانو آسيسان أما مالي خير كلاكم بحليسين أهلسان صدقة الله بحا بلن قاربا وقت با إيمان دونا روحوا انتو لما يريستو صدقة دي ذهب ووحي وقال السناوح وليبا الله صعدا يبنانكو لبحي وحو ديدي عدك قاطع عناني كبا قادنهين كي وقيانا دان كمالي أوران أيو أو إسلام هكابا أقبل هذا وإنتاني تاسي إيمان صدقة الله بحا الكل حديث كان لما وجبوا يالنا إياه mid waxa weeye waa wax hore u dhacaybo dee marka cadligii badan yahay insaafkii badan yahay wixii markaa soo baxayna dadkii si fiican loo wada gaadhsiiyo waxaa dhici karta in laba kaaftoomo dadkina ay qanaaco leeyihiin oon cidi aanay aqbalin oo waxa dhacday cumar ibn cabdilcasiis isagoon ku gaadhin khilaafada ku raagin laba sanadood wuxuu hayeyba ay ahayd iyo wax yarun hayey ayaa waxa dhacay waqtigiisii dee dadkii ka horreeyey waa kaduna
waa tan culimmadu ay kuba tiriyaan khulafada raashidiinta markaad 5 laga dhigo isagay ku shaneeyeenba oo waa khamisul khulafaa raashidiin waa halku ahaa wadaalimtiisu buriyay waliba reerkoodii qoyskooda waxyaalihii ay haysteen oo kale dadkii wixii soo baxayay ama fay ahaa ama qanaa'im ahaa ama saka la qaada ahaa ayaa halkii lagu qaybinayo la gaarsiinayay markaasaa waxaa dhacday manaadiqda qaarkood markii la soo ururiyay zakadoodii iyo wixii kale maal ahaayee dad in la siiyo ay hayd in cid qaataba la waayey oo cadligii insaafkii dhacay bal yaman oo dee meelihii ugu faqirsanaa ayay meelo kaba dhaceen in markii uu isagu waxa weeyaan loo gudbiyey uu yidhi maxaa iigu keenteen cid qaataba intaa ma hayno meelo kalena way kaba dhaceenoo markaa cadaaladii taamka ahayd iyo waxa weeyaan tawsiica xoolihii si fiican loobooda qaybinayay ayaa dadkii waxay noqdeenba inay wixii ay gaadhaan oo ay yidhaahaanba la waayo kolkol meelo qaarkood iyo manaadiqda qaarkood cid aqbasha lama waayo taasi iyada waa xaalo waana xaalo hore oo la arkay taariikhda laguba arkay arrinta kale iyadna taala waxa way waqtiyada zamanka aakhirkiisa fintatu ay badnaato dhibta ay badnaato ay noqoto ruuxii inuu kuba tamaniyo inuu xabaal galo oo uu kuba tamaniyo arrintu ay heerka marayso ayaaba bal de ay dhacdo sida xadiidada qaarkood ku yimid dhulku inuu soo tufayo aflaada kabidaha iyo dahab iyo waxyaalo ah ayaa dhacaysa ruuxii muxuu leeyahay maxaad kuba fali isagii nolol imaka ma sugayo dhibaatadaasaa haysataa adduunye markaa waa laga dhaqaaqay dee cid markaa qaadato oo aqbasho ayaaban la helahayn oo iyadoo xaaladaasna waxa weeyaan bal dee markay dagaal yimaadee dhibaata timaadee fitan ay timaado ruuxu maalkiisiibaabu ka ordayaa ehelkiisiibuu ka ordayaa wax kaleba waa ka ordayaayo markaa wixiisiibaabu ka dhaqaaqayaayo bal xaaladaasna dee waana waxyaalaha iman doonaba ee iyadana tani way ka dhalanaysaayo bal labada xaalaba way kaba dhalanaysaayo laakiin waa arumaraha rasuulka ilaahay noogaba warramay waxna la arkay waxna ay iman doonaan qaala musadadun xaarithatu akhuu cubaydullaahi ibn cumara liummih oo ninkan saxaabiga xadiidka inoo warinaya xaarithatu ibnu wahb waxay walaalayiin buu leeyahay cubaydullaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab xagga hooye ka hadda cabdullaahi ibnu cumar ma aha waa cubaydullaahi ibnu cumar xagga hooye ka walaalayiin bukhaari baa saa yidhi qalahu abu cabdullaahi kolley hooyadooda umu kurtum bintu jarwal baa la odhanayay oo iyada iyo cumar ibnu alkhadaab islaamkaa kala kaxeeyey oo dadka iyadii may islaamin markii ay xudaybiya soo degtee markaa waxa weeyaan de xudaybiya ay dhacday suuratulmumtaxinna ay soo degtay oo waxa weeyaan ay arrintuna noqotay dumarkaa gaalada ha haysanina oo faraha kaba qaada laba dumar oo uu lahaayoo maka ku dambeeyey dee islaamkii baaba kala kaxeeyey markaa ninkan kale ayaabay dhashay oo bal waxa weeyaan taas iyadoo cubaydullahi waxaa la arkaa dee ninkani waa ninkaa rasuulka ilaahi baa wax kaba maqlayoo inuu kaba weynaa cubaydullahi ibnu cumar loogaba horreeye laakiin haweeneydaas baa wada dhashay isaga iyad iyo cumarna waxaa kala kaxeeyey islaamkaa markaa kala kaxeeyo dee markii ay noqotay dumarka caynkaasa ha haysanina ee faraha ka qaada wixii iyadu dumarkaa kawaafirta ama gaalada ah ayaa cumar ay kala tegeenba markaa taas bayeed حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحديث دير وحيال بدنا كل صدي طيب إنه صاع رقني لا تقوم مدع ساعة قيامة مدع ما هو قيامته بهوي وقت يدعي له بأج بين عشية وضحاها ويكبر دعي لكن انت انا وحيالها نموقن ما وقت يدي لما قاري وي انت انا وحيالها سموقن لما اورني يوم انت سو سنه دعده تدمر دعده تاسو كله امورها سو لا اركو اشرادا وين موقتم ويانه قيامه ما دعيسو dhulka milyaar iyo barka muslimiinta ayiin marka nidi waxa weeyaan adduunyada waxa laga waayi doonaa ruux la ilaaha illa allah leh ilaahay taasi dhacdana qiyaamadu ma imanayso qiyaamadii wali way dambaysaa uno hadaba rasuulka ilaahay waa xaalihu kaba waramay oo qiyaamadu ma dhacayso hatta taqtatila ila islaayaan fi'atani laba kooxood cadiimatani waaweyn oo takuunu baynahuma ay dhexdooda ay dhici doonto maqtalatun dad badan lagu kala dhiman doono kuma yaalbaade maqtalatun cadiima dacwatu ma waxa hadda labada qolo ee dadka aad u badan kuma yaalkii ku kala dhiman doonaan waxay dadka ugu yeedhayaan waa mid kaliya oo islaam bay wada sheeganayaan waa dad muslimiin oo ilaa taas ay dhacdo qiyaamada ma dhacayso taasna waa tii aynu soo maray
dagaalkii Sifiin ee maalmaha dhan socday kumayaalku ay ku dhinteen dhinac uu ahaa amiir almu'miniin cali bnu abi aalib dhinacna uu ahaa mucaawiye iyo reer shaam taasba weeye oo dagaalkaas waqtigaas u dhacay waana lafdigan dacwatuhumaa waaxidana macnuhu waa dad muslimiin ay ahaayeen qolooyinkii khawaarijta yidhi labada qoloba gaalay ahaayeen taasi waa qowl baadila weeye laakiin xadiid kalaa jiro camaar inay dili doonto alfiya albaaqiya oo taasna ay ka dhigantahay cidda musiibkaayda markaa amiirka ahaa mu'miniintu waa cali bnu abi aalib buu ahaa cidda kale muqaadi unbaabay noqonaysay laakiin dacwadoodu waa mid lama gaalaynay horeynu masalada u soo marray haddaba ilaa ay taasi dhacdo qiyaamada ma dhacaysa taasna waa tii aan soo marray dagaalkii Sifiin 730 hijrada وحتى يبعث إلى لصو صاروا دجالون كوا بين بدن دجالين وكذابون بين بدن وقريب من 30 صدن كلهم مثل الصائية كمدنا يزعموا شاقني أنه الرسول الله بعنا يدنا قيامة مرة عيسى ساعده إلى إصابحان ضد بدن صدن كبردو أما صدن باها نبي نمش شاقنية تاسع إصابحان رسول الله الصادق المصدوق وحو كبا ورمي رسول الله وجوغ صلوات الله والسلام عليه عنسي ويمني وصابحي أسود العنسي وحكى له إن وقتها وحشاكتي مسلمة الكذاب مركي رسول الله وفادينا هواني سجع له أرنيي أهي أيضا الصباح ضي وقتها ده مسلمين على وضع دقالمي يضلي حنكي له أرنيي رير بني أسد مركي دم إسلام كاكوبا صون نقطة بلدت أنت كده مسنا كون نبني وشاقنا ويشرتي دوا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم معناه إلى هذا متى سيدعانا قيامة مرة عيسو وحتى يقبض العلم إلى علم يراده أما الله بقب ضوضه تذكي لقى صايبه دي وحوي اللابه وديه وحيالها صدتك أقونته ولهاي وضع مادام وتكثر إبناته الزلازل الردو بريها ربو يدعي ترينبا oo de marka leega taariikhda islaamka hadaan eegno gari badan baa soo maray laakiin way badnaanaysaa way aad bay uga badnaanaysaa ilaa taasi dhacdo way taqarab zamanku iskuba dhawaado iyada inta sharaxad horu inoogu soo horeeyay وتطر الفتن فتنتا بدنا أي موقته أو يكثر أوبة الهرج دلك وهو القتل دلك وي وحتى يكثر فيكم من الماء إلى أي بطان لحين وكب بطاء المال حوله أي كبطانه فيفيض باه بطه حتى يهم إلى وهم جريه رب المال إنك حولا لها ما يقبل الصدقة وتهرين صوم الروح حولي أنت بطان dadkina ay aanay adduunyaba la sii doonayno dhibaanin kastaba naftiisa ay cusraysay ayaa kii xoolaha doonayay inuu sadaqo u la baxo ayaa waxa warwar gelinaya waxa hami gelinaya bal cidii ka qaadan lahaydba وحتى يعرض إلى يدعضه إنه روحي مالك لها وبندق الروح كله فيقول إله الذي كي يعرض عليه وبندقيه لا أرى لي به دن كماله هذا ما له رأيك أنت وانقاذا لكن ما أنت حاجة كماله وحتى يتداول إلى أي كتر تمان الناس ضدك في البنيان مثل ساوير أنا كان ليرو لسكي لو تردموا أنا ضحت الصحابة الدنيا دبا أي ميلا بدن كوبا سكنت هاي لسكي ولا جو ترتميا نك ساوي حدوني كلا إنه كديريو أو لسكي سو كسيس الرئيسيو تاسع أي دعوة وحتى يوا أمورا إنه أرجنا أمورها سي وحتى يمر إلى وصامر الرجل منكم بقبر الرجل من حباشي فيقول أو إلى هيا ليتني مكان وتين كوصب إحنا باب قاريضة الله ما نهلك سكوتيرو الله ما نهلك سكوسك نادا كدن تي حباشي كوتيرو من نقضه وحتى تطلع الشمس إلى عدو كصبح من مغربها حق هذا قلبت فإذا طلعت هذا حق قلبت كصوب حضو وعلامات كي ويناس ساعده وراها الناس ضدكنا يركان يدور لنعيك لك بصوب حضي آمنوا أجمعون وحي غيب كان لوجو ورمي بيننا ينبا هرتو ديمي مركزين لما با إيمان بين لوضع إيمانيان فذلك وقت قاس عدو هلكا كصبحي يدتكنا آمنا أورون ضمان حين وقت ويلا ينفع أن وحبو تري نفس النفنة إيمانها إيمانك أي مركا لباتمي نفتا صلم تكون آنهين آمدها من قبل مثل هرق وحسير رميسي وجيددو روحي مؤمنك أها مركي تاسيتي مادو أهل هالكي بس عنايا روحي عبادة سنة عبادة سوى صعونة لكن كي قال كاي مركا يدوان إسلامية لما أقبليه كي إسق مركا يدوان توبت كينيا توبت دي لما أقبليه الباب كي والله حريه معناه وحبا أمتري النفس إيمانها إيمانك إلا تمادا وقت قاس مركا عد عركتو قلبات كصوب حضي لم تكن أنا هاي نفتاسي آمنت من قبل مثل وحر ميسي أو كسبت أو لا ينفع نفسا يدنا طاعتها وعبادتها وتوبتها نفتها لم تكن عن أهين
kasabat mid kasbatay fii iimaaniha iimaankeedii ay markii horeba mu'mino way ahayde khayran mid khayr ku samayso ruux faasiq u ah ruux xumaan samaynayo ruuxaan cibaadaysan buu ah markaasuu yidhi waan toobad keenaya iyadana waxba uma tarayso waxdama lama aqbalayo laakiin xaalkii horun baa soconaya wala taquumanna way dhici doontaa saacatu waa tan marka suurka la afuufo walxaal qad nashara ay kala bixiyeen الرجلان لaba nin في thawbahumaa maradoodii baynahumaa dhexdooday saa u kala bixiyeen waa laba ninoo wax kala iibsanaya kii wax iibinaya kii kale maray doonaya inay kala iibsadaan maradii bay saa u kala bixiyeen falaa yatabaayacaani ma kala iibsanayaan oo hadday isbaayacayeenna dee uma taam noqonayo walaa yadwiyaani mid kastaaba marka suurkii maqla halkiiba kuba dhacaya waxay kala iibsanayaan iyo maradii in dib laysugu celiyo laysku laablaabaa iyadii midna ma jirayso waa say dee saacaddu baqta iyo degdeg ugu dhacayse walaa taquumanna saacatu saacaddu way dhici doontaa walxaal qad insarafa uu la laabmay alrajulu ninkuu la gadoomay bilabani liqxatihi kale laabta way kasirsan tahay fatxa ay taalla waa hashiisii irmaanayd waliba intaa ay rabadka dee bilaha hore ayaaba liqxa lagu magacaabo ma laquuxe hashiisii uu maalay ayuu caanihii dee markuu hashii wada lisay uu maalay ayuu weelkii la baxay aad cabtid buu leeyaho aad la fadhiisatid falaa yadcamu suurtaa ka soo gaadhaysa oo qiyaamadii baa ka soo gaadhaysa oo ma dhadhaminayo caanaha halkaasoo isagii naftii kaga baxaysa walaa taquumanna way dhici doontaa asaacatu saacaddu walxaal huwa shaksigu yuriidu uu hagaajinayo macnaa yuslixu weeye ficilkan iyadoo hulaati laga dhigay iyadoo rubaaci labaduba waa saxun yaliidu haddii la idhaayo yuriidu haddii laba idhaahaba xawdahu darkiisii falaa yasqifu katan waa nin xoole la joogay geeliisii buu soo aroorinayaa ama xoolihiisii kale uu ka soo horreeyaayoo darkii uu biyaha ugu shubi lahaa ayuu meelihii dee uu ka dildilacay halkii biyaha uu ka sii dayn lahayd buu ka gukufaynayaa isagoo taa islaaxaa kuma jira falaa yasqi fiih wax uu ku waraabinayaa ma jirtee waana ka ugu horreeyaaba nin darkiisa hagaajinaya ayaa qiyaamada dhawaaqa suurta ugu hor maqle markaa waxba kuma waraabinaye halkaasaa dee nafta ay kagaba baxaysaa walaa taquumanna way dhici doontaa saacatu saacaddu walxal qad rafacahu shaksiguu saro qaaday ukulatahu ukula hamsadu way damisantahay waa luqmada waa in mar wax afka la geliyo haddii akalatahu la yidhaahna waa mar wixii la cuno sida qadadii cashadii quraacdii akla lagu magacaabaa basaru mara haddii ukula la yidhaahna waa mar keliya waxa afka la geliyo haddaba waxaa dhacaysa ruux cuntadiisii baa hortaalla cuntadii buu soo qaatay gacantiisa afkiisuu ku sii wadaayo falaa yadcamuha markaasaanu dhadhaminayn cunahayn macnaa intaa afkiisii uu gaadhsiinayo luqmadii uu qaatay sare u qaadaybe ayaa suurtii marka la afuufo ayaa saacaddii kaga gaadhaysaayo halkaasuu ku dhimanayaayo markaa macnuhu saacaddu deg deg bay noqon dadku iyagoo howlahoodii iyo shaqooyinkooda ku jiray iman ruuxna wixii markaa faraha ku haya ma sii wadi karo ma laabmi karo cid falaa yastadiicuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuuna dardaaran iyo waxyaalahaasi ma jirtay ruux kastaba halkii bay naftu kagaba baxaysaa ilaahayna badbaadiyo allah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk